Hang on to your seats. Everything is about to change. wararka ugu dambeeyay maxkamadda naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan gabadha lagu magacaabo Shiraayt in lagu eeday inay ka dambeysay dil. maxkamaddana waxay soo amartay 3 bar in baaritaan lagu sameeyo oo booliska ay baaraan. qoftaan aad u jeedaan waxa lagu soo eedeeyay inay geysto fal dambiyeed dil ah. maxkamaddana waxay ku soo xukuntay in 3 maalmood saldhigga booliska baaritaan lagu sameeyo. haatan waxa taagan saldhigga baaritaanka lagu wada naagta lagu magacaabo Shiraayt aan wada aragno wax ka soo baxo. run ahaantii marka laga hadlayo dhanka saxaafadda gabadhan Shiraayt saxaafadda qayb weyn ayay ka lahayd waxay necbneed dadka dilaaga ah. run ahaantii aniga ma aaminsan inay ka dambayso falkan. waa sax aniga gabadhaas ayaan ku raacsana maxaa yeelay gabadhaas saxaafaddan iskala shaqay jirnay dilaaga iyo tuugada iyo waxaasoo dhan ayadaa necbeed ma hadda lagu sheegayaa marka ayada inay dilaata taas mid naga dhaadhacaysa maahane dilaaga magaalada ku jira ha la raadiyo. wararka 24 saacaad daawataan ama dhageysataan ayada ayaa ka shaqeysa marka dilaama gabadhan hore sidaan kugu sheegay shacabka oo dhan waxay aaminsan yihiin gabadhaas marnaba inayna ka dambeyn falkan waxa dana lagu mahayo waa been abuurad gabadha lagu sameeyay. haddaba baaritaan dheer kadib kiiska waxa lagu wareejiyay ama lagu magacaabay isbitaal Lukani wuuna soo socdaa. haddaba daawadayaal waxaan sugaynaa waa isbitooraha kiiskan gacanta laga saaray. run ahaantii isbitooraha kiiska gacanta laga saaray anaga sida aan ku naqaano waa isbitoor aad u wanaagsan inaan dambi lahayn dambi dusha kama saaran nin dambi lahayn kama baxsado ninkaan hawsha loo dhiibo sida loo baahdo ay u qabtaa waa nin howlkala isbitoor anaga waxaan rabnaa inaan war siiso isbitoor war siiso waa jacala niga bata beelatiin aad iyo aad u fiicantiin warmaba bilaaban bawshi baaritaanka adinkana go'aanaad ka qaadateen maxkamadda ani waxay tiri 3 maalmood soo baar qofkan ani baaritaanka intaan bilaabin adinka maxkamadda ka horeysiin oo go'aankii gaaraba mudan qaadaan oo fahantay maxaad weydiin rabtaa ii sheeg ani saxaafadiina waydnaqa waa carab dheertiin maalin kasta waxaad la wareegaysiin siyaasad iyo luqluq iyo waxaan loo baahnayn
ani si fiican aan idin aqaana dhegeysa wixii boolis oo ul qof uga soo saari waayo aniga gacan uga soo saaro warkayga ma fahamteen laakiin mudan arrintaas sax ma tahay mudan warbixinasi mudane mudan waxaan ku weydiinayaa xaaskaaga faldambiyeedka lagu soo eedeeyay inay geysatay ma kula tahay adiga mudan warkaas maxaa ku jiran warad qaada in warad bambuun sanad meesha la joogtaan xaaskayga maskiin dhaafto waa kana xitaa ma dili karto dil inay geysat iska daa waxaan oo dhanna wax wareejinaya oo iska dabrugaya maxay ma taqaanaa waa booliska magaalada jooga هاي وريا كاميرا ديار مكوتا توبتانا باللابن انت قف كان نسك براي ولو كان دي متى ايان كو شيغي اني عسكري ايانا لكن عسكري انا هذا محمد عسكري في عن موريان عدستان هنكودا مجدد درك بوليس موت در شبيلية ايان وتا سانا مقالة كوكلا مدى كلام كوشيغا يا وحيد محكمة أذية هدي أتكبت باد وقول محكمة دي إذا لقى ما بتباد مقالة أنا هدو جديد نمن دلاء دم بليال أيا جيران كنتن يلح قعنتي إذن كدلي هوسي جيران هذا واحد خد يا دادك غار intay dembi galaan inay maxkamadda ka dafiraan laakiin ani maxkamadayda lagama badbaadi hadda kaamirada waa shida kartaa qofkan waa isbaran ayo haddaan howsha bilaabaynaa runtii ii sheeg caafimaadkaagu wuxuu ku jiraa in aad runta ii sheegtid dilkaas adaa geysatay qiro aniga dambiile miyihiin waa taa dembile saddex maalna baaritaan ugu haysa gabadhaydana aniga ma arkin dambiile miyihiin dembile waa tahay maxaa yeelay faraaga ayaa laga helay meeshii meydka laga helay maxaa faraaga meeshaas geeyay haddaadna dembilahay dilka waad geysatay maad iska qiratid maya dambiile miyihiin waa tahay qof walboo dembilaa marka gacanta lagu soo dhigay sidaan ayuu u qalqayliyaa hadda fiiri gacantaada maya anigoo qudaar jarjara ayaa mindiigi qashay qudaara jarjaraysa qudaarta haddaa jarjarayda faray kaa goyn lahayd korkaa ma jarteen been kuma soconaysa dembigaaga iska qaba dambiile mihi aniga yaamin ma gelin dembi aniga idhigayso mar walba runta ayaa guulaysanayso beenta maa runtaa guulaysanayda runta guulaysanay ma taqaanaa qofka ama dembilahaado ama yoonanaan qofka guulaysa ayaa run looga daawadayaal waxaynu nahay saxaafadda ugu horeysa ee maada shiraayad qansaldhigay ku xirantahay wixii akhbaar ay kusoo kordhaama waa keenno anaga dib ilaa hadda waxaan ku sugnay iridka hore saldhiga waxaan rabnaa shiraayad inaan wareysi la yeelano laakiin booliska ayaa noo diiday oday jamba gudaha lagaa wacooyaa waa ku salaamata lee adiga ma kula tahay qoftan in ay dilka geysatay ii sheeg midaasaan ku weydiinaya horta sharayd 5 sano anay iyada daris ahaani weligaygana ma arkeen iyadoo qof la murmayso marka ayada waa laguna wada dilka maahane qof dil geysana meel ahaan aniga aniga waxay ila tahay qofka in dambiga dusha laga saaray
horta markaan ku saasaya aniga masaakiina saahay qaybta wishka ka shaqeeya saas ay tahay hadana naagtaasiyada masaarkina mar walba saarka idoo saacad waa saarka hadana masaakiin waalsa naqtiimiya ku dhaasay dad xitaa masaafirnays abadan hoosa saafirnay hoosa ku dhahay taas in dad iska saadafay wiligeed xitaa wariir masaadil masaakiin waalsa nafsooda iska saadafa yarey warka aan kugu laadlayo dhigaha ka maqlin ee maskaxdu waa inaad ka maqashaa runta ii sheeg dembigaana qiro aniga su'aasha si walba haddii aad iigu soo celceliso waxaan kuu sheegayaa aniga dilka ma geysanin dilaayna miihi dembiilana miihi yaa marka yaa dembiilaa ii sheeg war waxaan seeyaan kaaliga qala hadal waxaan wax walba oo mudanaha ku weydiisa tartiiba waa inaa ugu jawaabtaa lablabadan kaama ogolaanay ogaya mudanaha wax walba ugu jawaabaysaa okay haddii kale ku dilayaa iskoryadan kaala mudane aniga dilaaymi ma geysanin dilkan dad ayaa masabidanaya aniga dilaaymi mudane waa waayay shabaqa ayaa ku dhihi karay yaa cadowtinima kaala dhaxaysa noo sheeg maya okay xiriirka ninkaaga iiga waran aniga iyo ninkayga waxaan ahayn laba qof oo jaceyl isku guursaday oo farxadna ku wada noolaa जो लब न कह सके वो इस दिल ने कह दिया है अजब है खुमारी अजब है सुरूर मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर सैयारे 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 कुछ तो हुआ है जरूर सैयारे 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 जाहिर भी तू मेरे अंदर
लकीरें तेरे नाम से जुड़ी है जब से मिला मुझे तू मेरी नींद तक उड़ी है जब है खुमारी अजब है सुरूर मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर بيلو ايش على هاس سيدي فيلمات عملها بالله يا سابع ماشان فيري mudane marka hore haddii aad filimaanta heesta ku daawan jirtaan ku dhahay nolosha ayayba hadda qayb ka noqotay ka waran bal waayahay nolosh waaba toosneedba sheekadan ilanka dhex arkaynaa moogta oo waxay eeday nolol raaxaae maxaa keenay dilkaan ii sheeg ma aqaan dilkaas waxa keenay laakiin aniga inta aan ogahay ayaan kuu sheegay wax kaloo dheeraad aniga warka ma haayo waxaan ogahayna ma lahan tali horta haddaan runta kuu sheego ciddaas muddo badan ayaan la shaqayn jiray xaafaday degnaayeenna waardiye ayaan ka ahay ilaa ma aha aniga naagtan inay dhibaatadan geysatay waxaanoo dhanna waa wax iyada dusha laga saaraya arrintan marka waa in la tixraacaa waana ogahay aniga maskiin inay ahayd mar walbo xaafaday maraysay dadkii dhuxum kuma fiirin jirin taliga waa runteeda been kuma sheegahaya adigana magacaa aniga lakshmi alayla lakshmida sheega tan ma ahaya magacayga lakshmi la dhahaa lakshmi bis xitaa maaha lakshmi baayaa liigu daraa ma ogtaa lakshmiyaal badanaa joogaan laakiin aniga baayaa ay raacsano banaankayga ku dhaca jamhuuriga marka qaar waa la iska kee dhahaa lakshmi baaya waryaa aniga waxaan ku weydiiyey magacaaga maxaa qisadan dheer ay gashay raalli noqo aniga gabadha muddo badan ayaan xaafadeeda ka shaqaynaya shaqaale ayaan ka ahaa howl walba waan qaban jiray iyadana dhib kuma ogeyn dariska xitaa iyada ma dhibi jirin cunugeedana aad ayay u welweli jirtay run ahaanta way fiicnaad hooyo ka wanaagsan iyadoo maba arkinba markasta cunugeeda ku dadaali jirtay waan gartay markay xafiiska aadan adig miyaa u hayn jiray haa anigaa u hayn jira weliba iyadoo xafiiska joogta ayay cunugeeda ka fikiri jirtay markasta waxay u weydii jirtay cunugka xaaladda uu ku sugan yahay anigana waa u hayn jiray adiga gabadhaad maxaa ugu welweli jirtay gabadhayda aniga run ahaanti aad ayaan u jeclahay markaan xafiiska jooga xataa aniga waan ka welweli jiray xataa waxaan ku fikiray in aan shaqada ka jooga iyada darteeda haddana way ii suurtogeli weysay waan iska daayay sabab maxaad u dhaaftay aniga deen fara badan ayaan qaadanay markaan guriga dhisanaynay waxaan ku fikiray haddii aan shaqada ka tago deentaas inaan dhiibi karin bambayna xaaladeeda waad ogtaa aad ayay u xun tahay markaan deenta dhiibno wixii noo soo harana nolol maalimeed ayaan ka dhigin jirnay run ahaantii xaaladda way adkeed sidaas darteed guriga aan deganayn qayb ayaan ka kireynay oo fikraddaas yaa keenay ii sheeg ma adiga mase odagaaga gacaliye sideed u aragtaana gurigeena qayb ka mid ah haddii aan kireyno kiraa haa micnaha waxaa jirto gabarhaan saaxiibanahay guriga haddii aan ka kireyno gabadhana way noo ogaanaysaa yacni lacagna waan ka helaynaa gabadhayda wehel ayay u noqonaysaa aniga gabadhan ila joogto lashmii la dhahaayana run ahaanta baryaan aad ayaan ugu shakiyey maxaa yeele alaabo fara badan shaki ah ahaa aa guriga ka maqan marka gabadhaas dan ayaa igu kalifayso guriga inaan ka kireyno maxaa yeele laba meel ayay naga dabiraysaa lacagna waan ka helaynaa gabadheennana wehel ayay u noqonaysaa marka ma isku raacnaynaa haye dhib malaan waa kugu qatay laakiin hal mid qof shidan ha ahaato qofta ah
adigana waa noqotay markaan gacli qatar nolosha markaad si u qorshaysatid run ahaantii si kale ayay laba ma fi bilowday sheekada igu bargoyn iyo wad sheekada dhaqso internetka ayaa xayeysiin ka sii daynay magacayga waa sanaa xayeysiinta ayaan ka arkay gurigaaga inuu kira yahay haa waan soo degayaa maanta ayaan rabaa inaan soo arko waayahay laakiin maanta ma soo arki karaana okay waayahay waa mahadsan tahay bay bay qariyaan kula jinaa laakiin gootama isaga raalli kama ahayn guriga inaan qayb ka kireeyo ninkayga qoftaan sugaayo waa ii imaaday sama mudna degdegaysid waxayna ii keentay lacag gaaraysa 15,000 ayada waa atiriisho gurigana 10 sac kadib ayay ka baxaysaa 8 sano ay Bombay degan tahay reerkoodana way isku soo dhaceen waxayna rabtaa inay noqoto atiriisho waqti badan ayada yacni ma ku qaadanayso 10 sac markii la gaar way baxaysaa anaga inta shaqada ku maqannahayna gabadheena weel noogu tahay marka soo okay maahana beel waay aniga waan ka helay anaga waan ku nasaneynaa gabadheena weel way u noqonaysaa waya jacliso waxaad doontid waa samayn kartaa adiga raaliyankaaga ma fahantay ayada maanta show ayay leedahay 10 sac kadibna inay baxdo ayay rabtaa asxaabtu waan sii baxayaa waaw waan sii hay saaxiib guulan ku rajeynaa bye 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 أحمد قبل سهر كان مع صاكين مش الفرن نعلق وقصة على ده عبد السلام ابو عبد السلام علي سلام علي سلام يا على ساكو كورو يا ملوش كجر جرتن على انه العادمه وصفرني waxaan weydiiyay qabtaan bal coca cola ma laga ribiyaa leedahay dhaxda diriis hoos weyn fiiribo si u socota leh kaalis taar si loo jarjaraya tan nag naftu ujeeda iya ariya shidanta qabtay waxaan ku weydiiyay timatulo ayo naga dado si loo fiiriyad kasimo بس دنت اللي يقول لي أبيل كان مدينة ورادي فيري كيس كوالك جوجي لعجة يقول لي ده ورادي ما حنا فيري سا نقصعه قرنا ولعجت هذا أنيقا يكوكينا هل كان يوسيسو ورويدا لا كجران لعجت كيرا البيع دقة ما حد فيرينا سانا وحوله naad sidaan u shidan weligaa ma arkin miya aniga ma iga shidan tahayna ma anta maxaad ku hadlaysaa naag adiga kaashidan oo ka qurux badan nolosheeda ma arkin aqdha oo weliba ka macaan badan waxay dhigaysaa inaan ku dhunkado oo aan weliba ku beelaa tahay
hooyo baaya i heesho هاي قبل إذا هذا واحد عندك صوصينا يا حبيبتي نكين إذا مليت أبى ألعب ماشي عندك ومحي قيلة يريسنا يا قيلنا وهدرس كينا رانا يا حاسكيس عنانا عنان كوينتن سوي صوصعد halkan gacanta geli meeshan ayaan boorsada dhigtay boorsadeeda ma aragtay ii sheeg aniga qayaaniga bacas kama helo aniga boorso ma aragni aamin aamin geli gacantaada soo bixi dhaqso aniga ma aragni aye muku xanuuntay saan aan fiiriye ilib gacantaada kan xabiibi saan aan fiiriye gacantaada wixii meel la dhigo waa inaad ilaalisaa ama xafdisaa ninkan waa sidaan mar walba xaaskiisa sidaan ayuu u garaacaa waa nin yaab leh xaaskaag maa sidaan loo dilaa hoo gabadhayda oo mar walba mu garaacaa xaaskiisa haa mar walba sidaan ayuu u garaacaa kaaga daranti waa shaxaari naagaha dhan wuu fiiriyaa naagaha kan wuu fiiriyaa maxaa ka wadaan hadalkaaga ii bayaani bal ilaa hadda ma fahmine wadada markaa maraaya xataa aniga wuu i fiiriyaa fiiri geli gacanta aniga meeshan ayaan boorsada dhigtay marka boorsada sidee loo weyn karaana aniga ma ogi kan geli gacanta horta si fiican u baar dhaqso aniga boorso ma arkin maya okay haddii sidaas ay tahay waxaan u malaynayaa in baabuurka aan ugu soo tagay meeshaan soo fiirinaa ma adigu mar walba ku fiiriya eygaasi xunka sidee ku dhacday anigoo ninkaaga arrintaasna daga qariso yaqa gootan isdaji aniga keliya ma fiiriyin ninkaas naagaha dhan wuu fiiriya waa caadadiisa gooda ninkaas waa ciyaal suuqnimadiisa aniga waxba igama jiro laakiin arrintaasna daga qariso meen qayladan ayaan diiday goodan qaylo mee hadda ma la soo xaajino ma dhaafay ninkaas goodan ila hadal may ahsameen hadduu inuu la kow ayaa ka siinay sida igor leh gaclis waa ku barya iga soo ray hooy ani waa cabshanooya badan isdaji gabadheeda هو خبص بيهان صورة سكنا في قرقام جوبتي بيبيا ورايري waxaan ku sheegaa sheeko labalabaan ma ka qaadanay naagtaas iyo ninkaaga wixii ka dhaxeeyay ii sheeg waryaay dhageyso naagtaas warbixinteeda kooban ayaan ka rabaa xaafadaas markii ay soo degtay okay ana ku sheega taas ka cabsanin adiga hadid bi aaminaysidaan ku dhaay cunaheygan kugu dhaartiye qoftaas markii xaafadda ay soo degtay waa nuurtayaan ku dhahay xaafadoo dhan waa kala kacday wiishka markii soo garaysan waa la kala fiiriyaan ku dhahay iyada dhan geesba geeskiisa ataliya runta haddaan ku soo sheego gabartaasiti inaba caada masaa ahayn kaal iska arag dhalinyarada dhammaana ku dhaxaadooda waa saa istaagaysa waa saa kackacayeen markaas arkaan muuqaalkeeda ku dhahay kulligood bambac mal usa qarxayeen balbalaas ahayd qoftaas balbalay ahayd beela taani adoo isku dambeynaa halo taliya waayahay orda iga taguryaa soo caday daawadayaal ilaa iyo haddii kiiskii shariyaad baaritaan ba-an ayaa lagu wadaa social media dhan weliba ayada ayaa la hadalhayaa ilaa iyo haddana wax kasoo ibaxa weeraatay ma jirto balse wixii kusoo kordha annaga dibada kaga sii socodsiinayno gabadhaas waxay ahayd gabar masaakiin ah wax dembiya ay leedahana ma lahan caddayna looma haayo halo taliya lukandhe kiiska ilaa iyo hadda waxba kama qaban miya kiiska maxaa wax ugu qaban weysaban anaga dhibaato badan ayaan haysato waana ku qasbantahay kiiskaas inaa wax ka qabatid waxba ka qabanayninna caddayso madaxdoo dhanna annaga ayayna fiirsanayaan taliya kiiskan gabar ayaa u xiran gabadhana baaritaan ayaan ku haynaa weliba fariyadaa meesha laga faro annaga wax aynoo tarayso ma laha waa tarayaan maxaa yeelay annaga baaritaan kale ayaan siiyaynaa marka wax yar hanoo lacag dhigo inta baaritaan ka dhammaan mid ayaan rabaa inaan kuu sheego kiiska sidiisaba faro iyo waxyaabaha qaar qofka laguma xiri karo waxaa la rabaa caddeyn dhaba maxkamadan waxay rabtaa caddeyntaas haddaan la helinna annaga dhibaato ayaa naga soo gaaraysa maalin walbana dadkan wariyaasha aniga ayay war iga sugayaan kiiskan waxaan kaa rabaa in
aad iga soo afjartid wax walba sameey kiiskan waa inaad iga soo afjartaa 24 saac ayaan jaanis ku siinayaa jaaniskaasaan ku siinaayana waxaa la rabaa inaad adiga aad ka faa'iidaysto waa marka ugu dambaysa aniga aan kula hadlaayo warkaygana waa inaad dhagahaaga u dhigtaa waayaa taliya wax ma ogaatay taliya dhegeyso dadkan aniga waraystay xataa waxay aaminsan yihiin qoftan inay dembi lahayn mudane gabadhan xaaladeeda way liidataa maxaa yeelay iyada ilaa xalay wax cunaa maysa qaadanin aad ayay u tabardaran tahay runtii aniga qoftaan waa waraystay balse waxay iila eg tahay qofaan dembi gelin ayay iila eg tahay waa qof masaakiin ah kaamiradiis fiiri waxaad iiga warantaa naagta idinla soo degtay wax walba way noo dhammaystirnaayeen sanaa markay noola soo degtay kadib wax walba way isbedeleen qaas ahaan lakashmiyi dhinaceeda lakashmi ah sanaa degitaankeeda lakashmiyi kuma faraxsaneen ninkayga joornaalka ma akhristayna maanta beejka afraad fiiri wax lagu soo qoray ninkayga ma ogtaa ayaamahan guriga xatooyada inay ka yaraatee ilaa iyo hadda shaqaalaa maa ka shakisantaan adag ii sheeg bal may gaclisaas dhibin anigaa soo fura ogeedaya iska dhafadna mudane warqadan ayaan kuu waday maamulka ayaa ii soo dhiyay marka sidaas darteed ayaan kugu keenay hoo qabso okay maasanid u kaade maxaa jira gabadha cusub guriga soo degtana booliska warqad caddaynaysa inay guriga degan tahay ayaa laga rabaa marka intaasna waa kuu sheegi rabay thank you sanaa gabadhayda sawiradaada aad ayay aniga xataa gabadhaada waan ka helay iyada xataa way kaa heshay dhegeysi gacliso warqad ayaa booliska noogu yimaadee waxaynu u baahan yihiin warqadda caddaynaysa gabadhan inay guriga deganta oo ay weli booliisku diiwaan gashan tahay maalimo kadib waxaa la keenay warqadda booliska ka socotay ee sanaa markaas sanaa waxay noqotay mahadsanid qof gurigeena iyo ehladeenna ka tirsan aniga waxaan ka shaqayn jiray meel saxaafada ah laakiinse aniga waan ka daahi jiray saxaafadda markaan daawo kadib wakhtiga dambe ayaan wakhtigayga kale ku dhammaystiri jiray goota markuu shaqada ka soo baxo wuxuu la baashaali jiray dad kale siduu wakhtiga ugu dhammaysto sanaa waxay noqotay qof faamiligeena ka tirsan run ahaanta ayada sanaa way ku faraxsaneed faamiligeena waan wada ciyaari jirnay waan wada kaftami jirnay waan wada baashaali jirnay farxadda wejigeeda ka muuqatayna aniga noloshayda kuma arkin se annaga noola qabsatayna qof ay la qabsato aniga maanan arkin marka dambe sanaa waxay bilowday showgeeda in ay noo kaxayso sanaa markay showga annaga noo kaxaysay run ahaanta wejigeeda waxaa igala muuqatay farxaad aad u badan wax walba iyadu way ku faraxsaneed xaggaygana shisheeye kama ahayn marwo aniga reerkaaga muhiimii maaha aniga reerkayga wax iiga muhiimsan ma jiro wax kalena inay jiraan ilama ahan anigana dilaaga ayaa muhiim ii ah ee waxaad ii sheegtaa naagta xiriirka kala dhexey ninkaaga aniga naagtaas waaba ka shakasanaaba naag fiican maba ahayn wax loo malayaa niman inay hoos kala xiriiri jirto naag fiican ma ahayn aniga runta markaan kuu sheega naagtaas waan ka shakiyey mar walbana aan arko baabuur b m w iyo baabuur kala nooc ayaa guriga ugu imaan jiray marba nin bay la socon jirta naagtaas shaki weyn baan ka qabaa meena kuma sheegahaya adigu waxaad noo sheegtay ninkaagu naagtaas inuunu xiriir la lahayn tus sawirka waa kana mudane
kala dhan mayga daadegay ninkaaga iyo naagtaan rabaa wax dhex yiilay war wax tusi akhay qofkan indhasheedaan horaa loo dhahay ilin kama dhammaato afkaaga kalfuri haddii kaleeto afka bisbaaskaaga aruurnaa kula saqajaamadihe sheegaya isug hadal dhaqso intaan ogaha sheegaya isugisiida aniga maalmaha maalin ka mid ayaa waxay dhacday nin anaga dirisna la ah ayaa wuxuu yidhi haye yarta ma ku caawiyaana garab ma ku siiyaa adduunya deris aakhira deris ayaa lalahay salaan ma jirta miya maxaa dhacayna waxbaha cararan adiga waxyaabo badan ayaan kuu hayaa oo ninkaaga ku saabsan gabadha guriga kula degan iyo ninkaaga ayaa xiriir ka dhexeeya maxaad ku hadlaysaana war adiga wax afkaaga ka soo baxay dhagahaaga ma maqlaan aniga runta ayaan kuu sheegayaa ninkaaga iyo naagtaas waxyaabo badan ayaa dhex maraya adigana waxaad ka og tahay malaha 4 sac shaqale u soo cadeen ma u haysaa haa cadeen ayaan u hayaa laakiin cadeenta markaan ku tuso anigana waxyaabo ayaa adiga kaa rabaa oo inaan isfahnaa labadeena marka sidee u aragtaana cadeenna farta ayaan kaa saarayaa marka adiga kaalintaada kasoo baxana tayada ayaan kasoo baxayaa saqajaan ayaa tahay oo wasakh ah markaad cadeenta ii keenta ayaan wax walba aniga jawaab ku siinayaa qofaan wax ogeyn ilaahay ma cadaabo ninkaaga ooliin baa u malaysana wax walba ayuu sameynaya laakiin cadeenta aniga guriga ku horkeenaya suuqa tahay adiga ayaal suuq inaan aniga ahay ama kan guriga ku joogno yahay waa la ogaan doonaa war jiraaba waqtigiisa ayuu imaanayaa raana wax haddaan ma kuu reebin miya maya wuxuu ii sheegay kilib yar uu ka soo duubay inuu asaga haayo waayahay kilib hadduu ka soo duubay muxuu adig kuu dhiibi waay ii sheeg bal maad ii jawaabtid maya falfur hadal ayaan kula dhaqso hadal maya maxaa usan tahay ma hadlaysa wajaga waadaya sug galiibkaas aniga galiibkaas baastarkaas wuxuu igu yidhi ahlaabeen aan kula seexday markaasaan ku tusayaa galiibka idhageyso 4 qof gurigooda waa inay aadaan waayahay mudane ilaa iyo hadda waxaan taaganaa saldhigga hortiisa gabadhaasi masaakiin waaye ilaa iyo haddana wax cadeen lagu maayo waxay la taaskartaas jajub iyo xog inay rabaan dembiga dusha inay kaga saaraan warkaasna wuu iska cad yahay haddaba waxay kusoo kordha dibada kaga soo socsiinaynaa sheekadu saanay noogu xiran tahay dembilaana runtii gacantaa ku dhigo waa helay yani fiiri meeshaan ninkan waa raanaana adiga ayaa wax idin dhex mareen waa ninka dhinta ninkaani adigoo sharaftaada ilaalinaya ayaa dish marka gacan ku dhigilaa waa adiga cidi kaa saari mayso war si dawriya warna sida yaa qaylinaya talyaano baana markesid وريانا يجي قريا ورنسي دوريا أضيع كل اللي تلي ورتليانو بانا حاسكي يا جودا كوجرت لنا أركوا مهم مركز ورنا قليسا مركز تلي جاو صوف صح تلي يا كو صوف صعدي تلي ما حب سمينا لك حقوق سوق له أور حقوق من أقول له على المية تلي إلجيسا قبل جودا كوجرت وانا حاسكي دلنا ما نجيسين كرت هذيك السونية تكو هذا اللي سابه هدينا أيضا إن دلاج رنتا يا واي إن دلاج وانا قانا أنا كان كل شيء قتلي يا واي دلاج دبتا وارينه تلي أنا قرنت كل شيء نكسراني أنا وحوجها فيديو سكرت صدرت هذا ندلي إلا يا دشريات دلكي لقوا يديناي ما لما صار دات كان بقولك بس ديت وعي أمسين إن الدلائن بقولك بس لو أترنا وعي أمسين إن الدلاتاي وعي كسب عوانا كنا اوكي كيسكو نوفو هذا
waayalna gacan ku dhiiglii maxaa yeela asigaa qirtay lugihiisowna noogiin maanta wixii ka dambeeya adiga fasaxataa dilaay maaha ninkayga waa beentiisa seed ku ogaatay asigaaba qiranaabe asiga afkiisa kale anaa gacan ku dhiiglaa weliba wuxuu kaluu sheegay in ninkaasi kelima uu ka haya sidaa darteed uu u dilay maxaa dhacay waa beentiisa ninkayga dilaay maaha may gaclis aniga dilayga beenaa sheegin dilaay ma tiid adiga waa beentaada been ma sheegayo maya dilayga waa aniga gaclis gootan baraaba qoys iga dheh baraaba fariista gaclis yari ayaa waa dilaagii sheeg ma ninkaanaa mase waa qof kale adaan ku weydiinayaa waan aqaanaa dilaayga dhabtaa yaa waa ii sheeg waa aniga dilaayga oo sabab aad u disha ninkaas aniga wuxuu igu rikaatay waqti inuu ila qaato sidaas darteed ayaan ku dilay aniga dilaay ayaan ahay aniga ayaa dilay waa yaabana aniga kiiskan hal qofaa la dilay laba qofoodna dilaa ayaan lay isku sheegaan aniga waa yaabay kiiskana gaajo ugu riday hadda ma waxaad qarinaysaa sana inaad xiriir la leedahay askari dhabta haddii aan kala hadlo aniga iisanaa waxaa naga dhexeeyey xiriir runaantii xiriirkaas wuxuu ahaa xiriir aad iyo aad u qoto dheer xitaa ma aqaano waxaan ku matala xiriirkaas saas ay tahay haddana xaaskii khaladanka gale sababtoo aan waan qayaanay xiriir hoosaad ayaan qofka la sameeyey filimkan waxaa tadahweyn loogu sameeyey b i b films बस तू है मेरे रातों में बर्फ से तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे रातों में हाँ कर रही है तेरी मोहब्बत जिंदगी में मेरी शिरकत इश्क में अपने भिगा दे ख्वाहिशों की कर दे बरकत हाँ कर रही है तेरी मोहब्बत जिंदगी में मेरी शिरकत इश्क में अपने भिगा दे ख्वाहिशों की कर दे बरकत बेपना तेरे इश्क में गया हूँ मैं जान से रिवाजों से दूर होके हो गया तेरा मैं ईमान से तू गुनगुनी रात है तू गुनगुनी है सुबह बंदिशों
वजह बर्फ सी तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे रातों में gotham run ahaanta adiga waad iga waaleysaa dhan walba waad ka fiican tahay waad ku maasan tahay laakiin waxaan samaynayn way qaldayiin mogtahay जरा जरा रूह का मेरी निखर गया तू लाज़मी हर पल में है सुन ले मेरी इल्तिजा हर भरम अब हो गया तेरा मेरा फलसफा तू मुझे दे भी दे जीने की वजह बर्फ सी तू पिघल जा सर्दी की सर्द रातों में मैं तुझ में जी रहा हूँ बस तू है मेरे यादों में maxaad samaynaysaana waxaan sameynaya waxba kaama gelin hawshaada qabso oo kaala adiga diriska miyaa dhibaysaa ii sheeg itus waxaad qarinayso adiga deriska oo dhan ma mas-uul ka tahay waxba kaama gelin hawshaada qabso war aniga hawshada waa qabsanaya laakiin marka hore inaan ku tusma rabtaana ahaa okay arag si fiican u arag dhaqso fiiri fiir dhaqso edab ma lihid kaale inaad tusto waa ku khasbantahay fiiri dantaada waa inaad garataa midaas ma kaa ogolaanayo war edab ma lihid edab yeelaan ku dhihi lahay war waxaan ku dhihi lahay deganaan wacha macheza halo abahay sidee tahay xaaladaada ka waran bal waan fiicnahay walaal adigoo raali ah maxaa kugu dhacay mar kale makugu soo celi karaa wax yar oo keliya iyo dulqaado sidee wax u jiraan ii sheeg halo sidee ila tahay dhib ayaa jiro maro hay war naga u socotaana war maxaa ka qaldan la soo yaala war naga tag iskarayo waxaan aan ku tusay hadda adiga aad fiirin weyso ka qoomaynaysaa maxaa waayna okay indhaha ku arag fiiri si fiican u fiiri arag ukaade kan waa boorsamidoo keliya filinka weli waa dhimaya aan isfahanno maxaad u baahan tahay okay hadda ayaaba soo dhawaato aniga waxaan u baahanahay hal haweenoo keliya inaad waqti ila qaadatid wax walba sidaas ayay okay ku noqonayaan nacas marka halaas isxaan igu samey marka waqti ila qaado sidee u aragtaa caadi ma tihid waa iga cabsiis run ahaantii isfahanahay marka istudio warkaan daan ku dhuftaa maxaa samaysana war adiga maxaa u malaysana fiidiyoga xunka aniga inaa iiga cabsiin kartaa waad khaldan tahay kaamiradan xuntoo yariista wax iiga duubi ani maalinka haddii aad u baahato waad ii wacan kartaa weliba nalal ayaan kuu shidaya si fiican ayay kuugu duubaysaa warkaalida ahaan waa iga weyn tahay laakiin nacas ayaa tahay weli qalbigaaga wuxuu u dhaqmayaa sida caruuroo kaleeto kaamiradan xunta ah qaabkaad iiga duubtay weli wejigayga si fiican looma arkaayo haddii aad rabto aniga inay fadeexaysato waxyaabo badan ayaan kuu samayn karaa weliba wejigayga waadax ayaan ku tusi karaa noocaagoo kaleetana aniga marnaba ima rakaateyn kara soo ma fahmin adigoo kalena waan ku aqaana si loola dhaqmo istubudio aragga xun leh wasakha eh cayaarta hadda ayay bilowtaa waxaan ahay waan ku tusi doonaa
wiil inay raacdo ma xumayne wiilkii waa ii sheeg saaxiibkeeda ayuu ahaa wiilka anigana midda si fiican ayaan ula socday anaga haddaynu nahay binaadan waxaa mararka qaar dhacda waxaan ognahay in ay qalad yihiin haddana inay saxna la noqdaan kadibna anagu og wax weliba aan samayno muhiimadda ka hadal saxiibo keliya maan xitaa way xirbeen labadooda inay isguursadaan wiilkaas magaciisa robin aan yidhaahdaa koonfurta hindiya oo ka soo jeedaa dhibka jira wuxuu yahay ninkaas inuu ahaa nin alkilusta qamrigana si ba'an oo weliba xun u isticmaali jiray saasay tahay ayada way ugu samri jirtay oo waxay ratay inay ku guursato dhibaatooyinka noloshan waxay ku bilowdaan carqalada yaryar carqaladahaasna mid ka mid a waxaa bilaabay ninka la yidhaahda raana ah gacalka haye ii warasee tahay ninkan ma istaqaaniina raanaha la yidhaahdaa dabaqaanoo kula degan yahay haa nin khatare waa ku dhahay shactaroolow waay maanta dhan soo iga soo qosolsiinaya aniga ayaa waa ku dhahay iska barahe dariskaaga waaye waad mahadsan tahay saaxiib waa laisku leeyaha bixin laakiin sidee ku dhacday aniga adigoo hal meel degan oo haddana is arki waayay labadeena dad daris ayaa nahay hadda kadibna si fiican ayaan isku arki doonaa labadeena haye haye maxan badan na keenahay soo bax ay soo socohay maxaa kugu dhacay waan iska ogay adiga inaa isoo wicaysid qofka biniaadanka dhiiggiisa hadduu kululyahay wuxuu rabaa in la qaboojiyo marka hadda danta aan ka wada hadalna labadeena maxaa u baahan tahayna okay muxuuma hadalkaaga meel fiican ayaad taagan tahayba fideoga aniga aan kaa hayo saaxiibkaa haddaan tuso ma og tahay dhibaato weyn inay kaaga imaanayso marka aniga adiga aan isfahanno wax walbana sidaas ayaan ku xalinaynaa saaxiibkaa fideoga ma arkayo anigana danteeda ayaan gaarayaa adigana waa badbaadaysaa hadda kadibna aniga ayaa ku soo wacaya adiga waxba ima soo wicaysid meeshaan ku wada ballannana oo inay igu imaadaa raanaha hadda kadib carruur maaha nin weyn ayuu noqday habibi soo hadal gotom ninka raana ahaa aniga wuu ii hanjaba fideo ayuuna iga haayaa wuxuuna rabaa saaxiibkayga mustaqbalka inuu tuso aniga baxar ayaan galayaa gotom waa ku baryaa wax lay samee adiga xal arrintaan u keen hay maxaad ku xallis ii sheeg askari horta waad la socotaa raanaa oo kale inuu yahay nin xaaraami ah wax uu ka naxayana ma la'an arrintiisoo kalena hal xal oo keliya ayay leedahay dil miya waa sidaa runta geesiyaata aaw ayaad hadda ma aqaano kolay guriga maalintaas ayay ugu dambaysay maxaa yeele kii saaxiibkeed ahaa xoogaa meelaas gurigu gaday kadibna ayada meeshaasi u wareegatay anigana waxaan raba arrimahan oo dhan inaan ka dhex baxo oo xiriir hoosaadkan aan soo afjaro balse waxaan ka cabsanaa shiri ah haddii ay ogaato waxay samayn doonto maxaa yeele ballamo far badan in hore ugu qaaday
cadow naabaa tahay sheeko aanan jirin iyo waxaa rabtay inay ga dhaadhicda rabtaa soo maa maxaa dhacay wixii dhacay dhulka qaado maxaad ku hadlaysaa dilkaadii ma geysan ee naagtaadaa geysato oryaa ma dhici karta midaas way dhici kartaa maydka markaan baarnay waxaan ogaanay 13 Diseembar 2 saac ilaa 4 saac habeennimo intuu dhacaysa in la dilo adigana sartaas ka daay eeriyaalka xataa ma joogin habeenkaas dayuusu way habeenkaas dan guriga joogay xagee joogay ana rabtaa soo inaan kuu sheego waaya waa kuu sheegaya habeenkaas booskiinna shir ayuu lahaa shirkaasna waxaa looga hadlaya arrin muhiim ah la rabaa in laga sal gaaro sidaa darteed shirkaas ayaad ku soo daacda adiga ma saxana ma soo qaldana beenlow maana ma sarulow laakiin tali waxaas dhan sida ku ogaatana waxaan ka ogaaday CC kamerada xafiiskiina ku xiran taasaa noo fududayda ceel badan adigu waa isku dayday xaaskaaga inaad salfaarayso oo macnaha aad ka dhigto qof aanad dembi lahayn balse waa kuu suurtageli weyse dembiga waxaa rabta adiga baanbaan inaad dusha isaga saarto kaama aqarsanayn waxaa lagu fikirta adiga hal qof laba meelood sidee hal waqti ugu wada joogi karaa waa waxaan maskaxda aan gelin alxaasil dhegeyso xaaskaaga waa dembiliga bixin ninkan soo istaag okay tali ma waxaad rabtaa inaad caddaysid dilaaga inaan aniga ahayn oo ay weli baxaaskayga tahay middaas sidee ku dhici kartaan tali midaan qaadan kara maa middaasi waad qaadanaysaa adiga wax nooma sheegaydid soco qofka dilaaga annaga waan ognaa adiga wax dilaataa male leyrtana sii socbar yaan dhaaf lajecleedeeda boqoradeeda quruxleedeeda abbaaga ku imaaday xanaaga iska daya kaale 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 hamu waa cunaysaa cuntaad cunaysaa okay okay hay wax ma cunaysidoo marka hande qabo shaxshax waa weynaanaysaa yaa hande hay gabdheeda ani hooyaa rabaa cunto kale maa ku keenaa gabdheeda cuntada makaa soo bedelaan ii sheeg bal may hooyaa rabaa ani ya dhib malaa gabdheeda hooyo way imaanaysaa goor ma imaanayhe aabbo goordha way imaanaysaa gabdheeda laakiin ani waa ogaa hooray shaldhigka booliska inay joogto maxaa sameynaa ani masaj gabdheeda hooyadaada way imaanaysaa waxuma garaa maxay boolisku wax haddaynay ku haayaan habeerata ma jirto taliya mid aan ku weydiiyay annaga wax badan ayaan kiiskan daba joognaa ilaa iyo hadeertaana dilaayiga dhabta ma aanan helin marka gootam hadduu ahan yaa waay dilaayiga dilaaga shacabka ayuu ku dhex jiraa dhib mala gacantaan ku dhigi doonaa ashirka way igu adageen can you speak you know waryaadii kale booliis taliya waa ku salaamay waxaan ku weydiinaa dadka meeshaan soo gal ma qorta adii ii sheeg bal bug ma ku qortaa waan ka qoraa buug la-aan maba la shaqayn kara soo maaha waaya ii soo qaad waa yahay taliya mari taliya 13 Diseembar inta soo gashay meeshaan liiskooda waa kana waxaa ugu dambeeyey nin delivery ah weliba wuxuu tagay dabaqa labaad waqtigaasna 12 saac ayay ahayd taliya taliya marwada waa runteeda wiilkaas ayaa ugu dambeeyey qof kaloo imaadana ma laha ma hubtaa warkaas taliya waan kaa huwaa okay hotelka CC kameradiisii ma taallaa
waa taalaha xafiiska ayay taallaa CC cameradan waan u baahanaa gotan u baahanaa way taliya si fiican u fiiri ninkaan aqoonso dhaqso ما قنت ليه ولقي حتى مارك هاتلي وليجا ما أركين أني نكان مسا أورينين مسا أركين taliya ninkaan ma garanahaya laakiin soo lagama yaabo taliya dilaaga inuu asaga yahay isaag maya mudana weligaa ma arkin kudha weligaa wax ma arkin maya bas waa ku too dhuuntay ku dhaartay wax dhan ma arkin laakiin shmeedigii inta aha mudana halkaa maxaa kasoo doontay gabartaa ay u khasabtay in adig ku keeno aniga kor joogso kuma dhin hoos maxaad kasoo doontay mudan raal noqo waa iga soo fakatay inaa soo bax marowin isku raal ahaada bis warka yaree sawirkaan tus ma taqaan ninkan san ashufay si fiican laa shufnaa wala arknaa weligaa ma arkin waaya raanaa ma taqin kaas kabaluus waay hadda kor u shaqey jira moogtaa waa igu dayayaa ku dhahay no an waa kasoo tagi mininkiis dhan saqajaan alaga saqajaan sideen waay hadda mudan ma bixi karaa waa ku tuwa mininkaa rabaa iska bax sawirkan saldhigyada dhan u qaybi saldhig walbaba geey aniga igu halay dilkii raana ilaa hadda boolisku meel way saari laayihiin gabadha layidhaha sharyaana ilaa hadda gacantooday ku jirtaa wax dembi ay leedahaba yaraatee oo lagu soo cadeeyana ma laha saasay taana weli boolisku waa iska heesaan ditore dilka meeshuu ka dhaca faraa laga helay inay yihiin sharyaa mayga hubta waan kaa huwaa kaal fiiri weliba si fiican u fiiri taliya faraheedu keliya ayaa laga helay meeshaan qof kale farihiis kuma yaalaan markii laga reebo xaaskiisii iyo saydigiisii aniga waxaan ka helnay markaan jirkiis baarnay faraheeda oo keliya weliba labadooda way isla legdamayeen weliba dhaawac gacanteeda ku yaal waxay caddaynaysaa inay isjiijiidayeen labadooda dhaawac gacanteeda ku yaal ma caddaynayo ayada inay dilaa tahay waxaa muhiim ah hubkii lagu dilay haddii hubkaas gacanta lagu dhigi lahaa wax walbaba way noo caddaan lahayn hadalkaaga waa sax sanaag lambarkeeda maa gotham la weydiiyana gotham nowa soo waayaha taliya ditore waa mahadsantahay adigaa mudan gabadhi keediya halo ha waa aniga ha taliya lambarka sanaa waan wacay laakiin wuu dansan yahay robini wax waayahay waan wacay laakiin isagana wuxuu ii sheegay inuusan meel ku ogeyn balse maqaayad hadda ka hor ay ku kulmeen in laga soo raadiya ayuu ii tilmaamay waxaan idi weydiinaa robin maalaan ma imaa jiray ها مدنه وإماجر ميشان لكن أيامان دمبو أصير ما إماده واي مركو wax gadana maxuu ku gada jira makaar mase cash cash ay wax ku gada jira ha laakiin abis ay hantile waan aan wixii warbixin abis weydii bal asiga raadiyay marka okay waa ku fahmaa haduu yimaado soo wargeliya waya tali ay koonfurta Mumbai sanaa iyo robin labadaba waa ka laadna idhageyso tali raana reerkiisa macal xaaskiisii soo kaxay waya tali aniga ninkayga ma dilin waani baryayaa min ninkayga ma dilin aawe aniga walaasheeda ii sheeg intay joogtaa walaashaada gudaha ku jirta aad qeylada daa xaq fariis baad kaal adiga qofkaad la hadlaysid ma taqaanaa raaj ayaad la hadlaysaa aniga waxaana nin siyaasi ah oon loo geli karin marnaba nagams anaad ooyin jilleen ay jilaysaa eedab maliida ninkaaga maxaa u dishay sheeg
maya ninkayga ma sheegaya mase ma sheegaydi soo walaalkaa kuma dalban may taliye asiga mar walba aniga weydiili jire nin xunna wuu ahaa laakiin aniga ilaa heerkaas ma xumi ninkayga dilaayo aniga ninkayga ma dilin mana iga suurtooda ninkayga inaan dilo waxaan ku weydiinaa hadda ka hor labadiin soo iskuma dhicina ii sheeg runta haa waan isku dhacnay weliba guriga waan ka tegay laakiin aniga ma dilin ninkaygii aamin taliye markaad ka tegayda guriga maxaa dhacay ay videoga waad ka heshay soo maaha aad ayuu u fiicnay marka si fiican u fiirsatee xoogaa dareen ayaa ku galay soo baxna keen soo bax islaam fiicanaad tahay marka videoga noocan aad fiirsato waan dareemayaba inuu dareen ku galaayo soo soco soo dhaqaaje inta tag waajibkaaga aniga ayaa ku marsiinaya waan ka helaani waxyaabaha qaar marka la fiirsado in waajib aan ku marsiiyo marka sababtaa ku fiirsatay ma sheegi kartaa adiga ma xishoonaysid miya aniga xaaskaagaan ahay ma xishoonaysid miya waxaa kaa waan ogay xaaskayga inaad waaba suuxda soo maaha hore ayaa ka suuxday iyaa isgaari aamus bila edab ayaa tahay waryaa ka joog adiga maxaa dhacayna ma walaasheedaad gacan u qaadaysaa waryaa war meeshaan tuulada xunaad joogta ma malaynaysaa anigaa ka taliyaan ku dhahay wax aad ka tahayna ma lahan anigaa tallaabo sharci kaa qaada adiga war nasiida ayaan ku dhahay nacalla anaaba tallaabo sharci ka qaadaysaa soo maaha aan aragna ninka laga qaado maxay dhihiisay ku soo celi aan maqle سقدان يا تكوى يا كاسيرة وارجع وكبري اسكدا ورنكان إلا دي لمان سكال مالها ناكودا يسيدا وروح جري ما باهم محوق عنكو قاضايا ورادي ديجسو ورميشان ما ماشي حمد أنيجا أتكتمت ميشان أنيجا كتلي يا كوداي يسيدا حرير كان ميشان أيوة كو إجي يا كوداي يبيجيجا حكا إجا هرقري يا كو قدام بابنا يا كوداي يسيدا ولا نيكا أمان ديلا صباح نيكا قعدت كو زقاني ورمالك كان هدي قعنا تقدد أن كوداي قعمها يا كاتشرا يا أنيجا وصف واحد والله صباح كان أرد كحي ود أنا ناقي من قتل نينك لو قدر واحد فايد الذين ملهان في روحه قاضي أصلا أرسل ولا شيء واتشا ماتشيز أختو شيز وحو فائد لي من الفاميل كودرن نغتا قد بولشيت أنا نكاس ما أنت ساي وجهي سي قدام بيس ديب دمبنا وما أرك أنت اللي وكبريا يا إذا هذه قال هذه ولا شيء محمد ماشي نوجه يستا إيش أكبر يا ولا شيء محمد صباح ماشي لهم بعدين عرب ليراني قال هذه مئة خانة أنا خوف كان هاي ورهدي أنا بانه سلقة أنا نقول أريان جلي كرا كرمك ده ما تنو نتقيل نسي ما جي ما تخانا وراتش هدي أنا بانه إندر كأيان كادي وصيو بركة ما تخربت عينك كدكتو يا تالي سؤالكم يا جماعة ده كان كدقة فيري نكان أود بوليس كتوس والسياسي بعبع
شنور بس كده بس هاي دوبا كل عذاب صارك السياسة ما كنت داي أود بونس كوارك تسمع صديقة سوم الدين العظيم يا أنا صديقة لكن واو عبد لي أوكلي وحكى لكم سمينها محكمة ما كيش شيء سواركاس ما كعد كتا إيشك ها وان كشي كرا وحول عدن وان هاي أنيقا maxay tahay in habeenkii la dilay aniga waxaan joogay baarka iyo kashmir waana caddayn karaa halo haa soo hadal meeshiis ku haya annagaa hadda imaanaynay bay bay taliya maqaayadii ayaa nagala soo wacay adiga mid ayaan ku weydiinayaa sideed ku awooday aniga inaad meeshan xoog iigu keento isha saldhig iyo cisbitaalba qofka asigoo doonaya lama keeno markuu ka baxayana amarkiisa ugama bax ma ogtaa midaas waaye maxaan sameeyey dil ayaad geysatay raanaad dishi mawaalanta adiga sideen u dilaya aniga raanaa saaxiibadaa darteed ayaad u dishi saaxiibadee aamus تغني عنك قبل انت لا باشاش حدنا وعسك دغيسا نين حسوستي كتغت سوما انا حتى كيسو على واكو شيغا انا كو شيغاي ديار موجده ومركي غوريس ماشي اسبيتال laga rabay saldhig oo xusuus soo celiyo qof xanuus laakiin hal sharti ayaan wataa in idageyso waa ku baryaa mudane aniga waxaan rabaa inaan social media aan loo sheegin macnaha aniga arimahayga oo dhan sababtoo aniga gabar walba aan jeclaado nin jaajuus ayaan daba dhigi jiray oo arintooda iisoo ogaan jiray jaajuus haa alberto ayaa la yidhaahdaa ninkaas jaajuuska ah isaga ayaan iisoo sheegay goothan iyo qoftaas inay xiriir ka dhexeeyaan intaas kaliya waaye taliya nikanna nikaachis haa isaga naftarkiisa waaye ninkan waaye taliya taas macnaheeda dilayga ninkan waayaan u maleynaa taliya saldhigaa nagala soo wacay sanaa lambarkeeda wuu shidan yahay meeshay joogtana waa ogaa karnaa waa arrin wanaagsan
وريا صباح سيسك تك بناك شي عمل وريا ايش تليفكن انت كنتينا يوسي وريا شيك يوسي وشيك مرني حبتي خرماركنا غروك شور جير او وينكو اكتشن خاري واكنا منك سنة ماشي معك سودو لكرتا كلي أرمي هذا نينكاس ورديها إنا ويدينا أيا نوناكسن أوكي صوص وريا وردية وردية ها هاي محاضرناينا غوريغان يا إسكالي إيشي غوريغان وحا إسكالي نين لوغو مقعاو تشيشو نينكاس أيا دقن غوريغان واي قف إماجر مجراني ها هل قفاو إيمان جري يا واي qofkaas wuxuu yahay magaciis ma aqaan laakiin uu imaan jir le arki jir aniga wax kale aan ogahay malaha waxa lagu tarjumay film si fiican u fiiri ha asan naftigiis waay बागमारे सर कुछ तो हुआ है यहाँ taliye meeshaan dhigaya iiga muuqda aniga taliye waxay u muuqataa qof inuu isku dayay dhiigan inuu tirtiro meeshaan dilaa ka dhacay dil ah dilkan mar hore ayuu dhacay maxaa yeele dhiig waa madoobaaday شوباشة وقتها شوباش انت كراني يا ناري محارو بنوني او شو راني ابو ولالك ماشاش في ربو taliye ila fiiribo taliye saldhiga anagala soo wacay arrin degdeg ayaa jirta ayaa la dhahay saldhigaad iga aaday memorigaa naqaad waxa ku jira iisoo waad mudane socaadigan taliye meydkaas sanaa waaye qofka anuga shaki qabna raana inay dishay waaba tanaa meydkeedii raana ayaa dilay taliye waa runtaada run ahaantii anaga kiiskan uu nagu daba dheeraaday teeda kale qofkan yaa dili kara iyadan taliye mimirkaarkaa helna ayuu fiidiyoogan ku jiray raanaa wax badan
laakiin maanta kaamiraday adiga ayuu ku hortaalaa dhib ma laha kaamirada ha i duubta haddee rabta maahane ha i wareejiso ilaa maanta waxaa ii soo socota qof aad iyo aad u kala kacsan kaamiradana inay i duubto anaaba rababa qoftaan wax badan aanba sugaayo oh waaba la imaada u malaynaa saane waqtiga loogu talagala ayaa imaadee sugitaanka kama helo in la idaasadana ma jecli maanta laga bilaabo taageero ayaan kuu ahay kawaran joogaan aad u qurux badan yahay run ahaantii aniga maanta waxay ii tahay maalinta adduunka iyo u farxad badneed maxaa yeelay wax badan ayaan ku sugayay ugu dambayntana maanta horteeda ayaaba joogtaaba caadi mateed wari dhammaantiisa hadda wayna cabeynaa gacanteeda ku habboon in lagu shubo anigaa shubaaya quruxlooga hadda adi shubtadii hadda ani shubo seem waaye hal daqiiqa u kaadi ma hubta maanta cabitaan badan ayaan cabaynaa joogana sidaan wuu ka qurux badnaanaa surintay maaha quruxda sideedaba ammaan ayay leedahay kilibka aan kaa duubana social media inaan dhigo waad ka badbaaday maxaa yeelay waaba ii imaada soomaa maantana aniga adiga waqti ayaan wada qaadanaynaa weliba waqti aad u wanaagsan cadowtinimadana aad iyo aad ayaan u kaseeyaa biimaa siise warkaysiihe an wixii war aan hay waa kuu dhameeyey soo daa waxaa haysan marba haddii aan kula saaxiibi karo cadowtinimadaada maxaan ku falayaana waxaan ku falaya ma lahan wax kas ayaa tahay gabar marba haddii ay sharafteeda badbaadsanayso waxaad ogaataa wax walba inay iibsan karto waxba lama ahan wax walba ayay u hori kartaa ma fahantay xitaa wax walbay u samay kartaa dhaara abaay aad ayaad u wanaagsan tahay anigana hadda waxaan rabaa in aan ku ammaano ammaantaasna waa mid aniga laabteeda ka soo go'day alla qurux badnaada qayweynigaa qalbigana ku jecelaa kaad doorta khayrkaaga laabteedan kugu qoray ila qaybso noloshooda galgaceylka ila qaba maxaad iigu samaysana cabitaanka ma waxay igu dartay
waxbaa qaldan meeshay ka qaldan yihiin ma aqaan wax ayaa samaysa adiga madaxii qarxis si xun ayaad ii gashay waa igaaday gabartan quruxda badan wax walba ayay adiga kugu samayn kartaa soo ma ogidna kaal adiga maxaad islahayd fideogan aad iga hayso inaad igu rakaatayso taas ma dhici karto ragga noocaaga oo kaleetana si fiican ayaan u aqaanaa waxaad tihiin danaystayaal dantooda keliya ayaad gabdhaha ka gaartaan kaalma waxaa rabtay saaxiibkayga lacagyahanka ahaa inaad lacag ku xujayso anigana waxaad rabta ad iga samaysato taas macquul maaha midaas kaama ogolaanayo wardaqon ayaa tahay waxaad isdhehaysa gabadhan meel cidlaha geysa kadibna waxaad rabta ka samaysa laakiin fursad ayaa ii tahay maanta adiga ayaa meeshan cidlada i keensaday baraawac leeg waxaan raba ayaan kaa samaysanayaa war in aan kawkaasi ayaa meedkaaga meeshaan ku duugayaa nacaskaa taacun maxay dhahday meedkaaga ayaan dhulku duugayaa aqoon iyo maleed adiga ayaanba hadda kawkaa siinayaa qof iga kaa celinaysana ma laha anaa ku aqoona meeshaan waxaa ka dhow meel gudaafad saqajaan noocaaga oo kaleetana meelahaas ayaa loogu talagalay maanta meedkaaga meesha ayaan ku tuurayaa cid ii kaa badbaadin kartana ma laha xaaraamiya oon ku dilayaa mudan raana gacantiisa dhaqaaqaysa feeri maxay dhahday in aan ku dilo aan meedkaaga juqdan ku tuuraa maxaa juqda ku tuurtaaba adaaba hadda kuu dhammaatee quruxdan iyo waxaan dhan aa ku faanaysa maanta fiira baaba ayaa u dambaysay wejigana waxaa igu ballana in aan kaa beddelo waana kaa beddelaa sinaa raanaa inay dishay rabtay balse ayadii aba dhimatay taliya dhegeysto anaga waan aragnay sanaa qofkii dilay laakiinse ilaa hadda waxaa isweydiin mudan raana ayaa dilay
haddii aan dadkii oo dhan meeshaan isugu yeernay oon waraysi la qaadanay dhammaan waxay leeyihiin anaga waxa waaye wax luka kuma lihini marka waxaa isweydiin mudan yaa dilay ninkaas aniga taasaan la yaabanahay ilaa hadeertaan taliya ma laga yaabo waardiyaha kan wiishka iyo sidoo kale ninka guriga iska lahaa waxay ila tahay raamaa inay dileen aniga saasay ila tahay hadda taliya wari dhammaadkiisa annaga waxaan haysanaa maanta oo keliya haddii aan maanta dilaaga soo qabanna berito maxkamadda ayaa la korayaa dhammaan shacabka waxaan ogeysiinaynaa kiiskii intaas iska soo daba jiitamayay in ay ka hartay caawa oo keliya ama maanta teeda kale berito waxaa la rabaa in lasoo koro maxkamadda gabadhii dilka lagu soo eedeeyeyna ilaa ay hadeertaan wax caddeena laguma hayo ninka isbitooraha ahna kiis walba asiga ayaa xalin jiray laakiinse waxay u muuqataa kiiskan inuu iska daba dheeraaday oo ilaa ay hadeertaan hadal cad ka soo saaray saaxib cod ku darbe haddaba wixii kusoo kordho kiiskan berito iyo maxkamadda ayaan u fadhinaa iyo isbitoorahaas wuxuu caddeemo soo saaro shiraayaha 3 beri ayaa booliska gacanta ku hayay saas ay tahayna wax dembiya ilaa iyo hadda kuma caddaanin maantana waxaan sugaynaa maxkamadda wixii ku soo kordhan warkaas dib ayaan iiga soo sheegaynaa hadda maxkamadda way noo furan tahay mahadsanid garsoore mudana garsoore hadal badan haan ma buuxsha ayaa hore soomaali u tiri kiiskanna muddo ayuu soo jiitamayay waxaan rabnaa marka xaqiiqiisa inaan bannaanka soo dhigno wixii caddeynaan haynana maanta waa in la ogaadaa gabadhaana dembiga ay gashay wuu ku cadyaha garsoore marka waxaan rabaa su'aal inaan weydiiyo marwo waxaan ku weydiinayaa ninkaaga faldembiyeed hore lagu soo eedeeyey ma jiraa ii sheeg marwada iyadoo miirkeeda qabta ayay dembigaas qiratay soo sax maahana marwo garsoore arrinta way iska caddahay mudana garsoore dood ayaan ka qabaa arrintan doodda way furan tahay mudana garsoore horta mid yaana laga tegin gabadhan haddii ay qiratay ninka iyada gacanteeda in ay ku dishay ninkeedana meesha kama marna asagana wuxuu qirtay in uu gacantiisa ku dilay weliba asagoo ku badbaadinayo xaaskiisa ayadana waxaan dhihi karnaa waxay waxaasoo dhan u samaysay ninkeeda sabab ay ku badbaadsanaysa darteed haddii ay ayada dembiilo tahay asagana kama marna oo waa dembiile taas micnaheedu waxay tahay labadan qof oo lasoo eedeeyey midkood ilaa iyo hadda wax caddeynay in aanan lagu haynin waa shaki un baraawo way isbixisay aniga maba liiga baahnaba arrimahaanoo kale in aan gudaha u sii gala maxaa yeelay naag sidaan u qurux badan ninkii ka tegay oo naag kala raadsada waxay ila tahay naagtaas iyadaa ninkeeda qancin weysay waa laiska fahmi karaa arrintaa inaan gala aniga ceeb ayay igu tahay maxaa yeelay waa arrin family waxaad tiri gabadha basal ayay jarjaraysay midi ayay gacanta ku weysay toorida ay basasha ku jaraysay ma farahay ka saraysa mise qaybta sare ee halbowlaha ayay ka jaraysaa ii kala cadday bal midaas inaan ogaada haya awkaatay markii mindi basal lagu jaraayo meesha ay kaa jarayso ayada maa kuu sheegaysan mindida intaa kaa jarooy ama ku dhehe amar maxkamadda buuqa laga joojiyo mudana garsoore gabadha masaakiinta ah ilaa iyo hadda wax caddeynan laguma hayo mideeda kale raanaha hubkii lagu dilay ilaa iyo hadda sababta ay booliska usoo qaban laayihiin maxay tahayne mideeda kale dhaawaca gacanta ugu yaalo ayaa waxaa la leeyahay raana ayaa u geystay midasna caddeyn ma noqoto mudane marka waxaa idin leeyahay oo idinka codsanaya gabadhan in layska sii daayo maadaama ilaa iyo hadda wax caddeynaan lagu heenin gabadhan meesha ayaan ugu baxay isbatoore logande maxkamadda ayaa waraysi kula yeelan rabta marka waa inaad masraxa soo fooshaa logande muddo 3 maalin ayay maxkamadda ku sugaysa inaad caddayn keento ilaa iyo haddana wax caddayna maadan keenin sababtaas ii sheeg marka aad caddaynta ku keeni weysay waan ku guuldarraystay waa runtaa caddayn inaan keeno guuldarro ayaa igu dhacday caddeyn oo keliya ma ahayn ee hubkii raanaa lagu dilay xitaa idinka weli miidan soo bandhigin maxay ku dhacday midas marka waa runtaa hub sooma bandhigin balse aniga dilaaga waan aqoonsan karaa runtii waan aqoonsan karaa aniga dilaaga yaa waayana waxba ma tarays wax macnaa ma yeelanayso maxaa yeele maxkamaddu caddayn la'aan waxba ma xukumayso marka sidaa darteed wax macnaa ma laha see camal marow kiiskan lagugu soo eedeeyey adiga dood ma ka qabtaana ii sheeg
caddayn iyo markhaati markii maxkamadan la hor keenay oo ku saabsan kiiskaas maxkamadda waxay go'aan ku gaartay marwada wax dembiya inaysan lahayn isjiid dheer iyo baaritaan dheer kadib waxaa la ogaaday saxaafadda ay soo saartay iyo weliba booliiska maxkamadan ay go'aan ku gaartay gabadhan inay tahay gabar iska masaakiina dembigaasina aysan lug ku lahayn sidaas darteeda maxkamadan waxay go'aan ku gaartay in ay iska fasaxdo haye quraxe waan kuu soo socdaa soo dhaqsehe waan ku sugi lahay filimkan waxaa dib haween loogu sameeyey BIB Films. wax badan ayaan ku sugay maantana fursad maxaa sameynaysaa isiida aamus maxaa sameynaysaa isiida isiida warkuma noqonaye isfahanaan inta tagorta anaa shaqadaada aqaan wax badan ayaan jaanis ku raadinahay kaalay lagama yaabo maanta inaa iga badbaadid ma badbaadaysa kuma daanay inaan ku daayan waa habeenkii waxaan tegin mudane waxaan ku weydiinaynaa dareenkaaga waa sidee maadaama naagtaada ay xor noqotay adigase xabsiga lagaa soo daayay maxaad ka leedahay arrintaasi isbitaar lukande waxaa ahayd adiga nin kiiska aanan ka fakanin laakiinse kiiskan siduu kaaga fakta dilaaga maxaad u soo saari weysay magacaygu waa lukande aniga runtii kiis aan gacan u qaado kuma guuldarraysan kiiskaan haddaad moodda inaan ku guuldarraysan kuma guuldarraysan guul waan ka gaaray xaqiiqada markaan kaaga hadlo aniga meesha dilka uu ka dhaca markaan tegey hubkii wax lagu dilay waan arkay hubka markaan arkay aniga hubkii sooma bandhigin waan qariyey gabadha ayaa waraysa aan ugu imid gabadha aniga markaan waraysanaya waan ogaa inay gacan ku dhiigla tahay oo ninkaas ay dishay balse waxa keliya oo aan ka rabaa waxay tahay ujeeddada ku kalliftay inay wax disho ujeeddada ku kalliftay inay wax disho ayaan baaritaan dheer u galay waxaa ii soo baxday ninka ay dishay inuu ahaa nin bulshada ku dhex jira oo qaabdaran ninkaas qaabdarradiis waxaa ka mid ah naagaa eberuu ka dhigay miduu dilo iyo miduu rakaateeyo ayuu ka dhigi jiray ayada waxay soo gashay dadka oo ula yimiday inuu rakaateeyo ayadoo difaacaysa qoyskeeda sharaftiisa ayay macnaha gacan ku dhiigle noqotay ninkaasna bulshada runtii in laga dhex bixiyo way wanaagsaneed adinka waad fahmi kartiin waxaasoo dhan aan u sameeyey qofkaani qof wanaagsan oo reerkeeda macnaha difaacanaysayeed ninkaasna nin bulshada ku dhex jiro qaab daran ayuu ah inuu dhintana wuu asaa'ilay
filimkan waxaa lagu tarjumay astaan films